dadkii ka dambeeyay Nabi Idris waxa kamid ah 5 nin oo wanaagsan waxaana haayeen dad Ilaahay caabudi jiray diintiisana faafin jiray waxaana kala oran jiray Wad Suwaac Yaquut Yaquuq iyo Nasra kadib 5 nin ee wanaagsana way dhinteen dadkii waxa ka murugoodeen dhimashadooda dib waxa go'aansadeen inay sameystaan astaamaha ku gartaan kuna soo xasuustaan dadkii wanaagsana iyo dadaalkoodii kadib waxa sameystaan salamyadaas oo ay ku soo xasuusin jireen dadkii wanaagsana laakiin xilligaas ma caabudi jirin ee xasuusaanum ayuu haysan jireen salaamta markay dhinteen jiilkii koobaad waxay mid jiilkii labaad oo 5 nin waxba kama ogeen iyo astaamahoodaba kadib Iblis ayaa u yimid jiilkii labaad waxaana uu sheegay in islaamtana caabudi jireen aabayaashood sidoo kale ay leeyihiin awood ay wax ku tari karaan haddii caabud waayeenna inay naarta gelinayaan kadib dadku waxay biloobeen inay sujuudaan salamyadii oo wax weydiistaan waxaana saas ku ilaabeen balantii ay la galeen Ilaahay taasoo ahayd inay keligii caabudi doonaan oo cidna la wadaagi doonin sidoo kale waxay ilaameen tilmaamii wanaagsanaa ee ka dhaxleen Aadam iyo Idris calayhi salaam iyo dadkii wanaagsanaa markii la caasiyeen wuxuu Alle subxaanahu wa ta'aala u soo diray mid kamid ah iyaga oo ugu yeedha xaqa ugana diga baadilka nabigaasna wuxuu ahaa Nuux calayhi salaam nabi Nuux calayhi salaam wuxuu ahaa nabi rulow ah oo dhowrsan waxaanu ahaa durriyadii nabi Idris calayhi salaam abtirsimadiisuna waxa ahayd sida qoray ibn Kathiir Nuux ibn Lamaka ibn Matushalih ibn Idris calayhi salaam qisada nabi Nuux calayhi salaam wax meelo badan ka soo ururtay quraanka si gaar ahna waxa lagu magac daray suurad waxaana quraanka lagu sheegay 43 jeer Allah ayaa u doortay mid noqda inuu fariinta xambaaro sidoo kale waxa uu ka mid yahay 5 rasuul ee loo bixiyay ulul azmi oo ah inay samir badiyihiin Allahna la galeen balan adag ulul azmiguna waxay kala yihiin Nuux Ibrahim Muusa Ciisa iyo Nabiyullaahi Maxamed عليه الصلاة والسلام نبي نوح عليه السلام iyo nabi aadan intuu dhaxaysa waxa la sheegay 7 qarni sida ku soo hortay xadiis weynayay asxaabigi weyna ee Abu Dar su'aal ayuu weydiiyay nabi Maxamed naxariis nabigooda korkiisa aatee oo ahayd imsa u dhaxaysay nabi aadan iyo nabi nuux عليه السلام waxa uu nabi ku jawaabay naxariis nabigooda korkiisa aatee waxa uu dhaxayay 10 qarni ibn Kathir oo arintaas fasiraya ayaa sheegay inaana shardihayn inuu qarniga noqdo 100 sano hal hadii saas loo dhaafana waxa noqonaysaa intii u dhaxaysay nabi aadam iyo nabi nuux عليه السلام waxa noqonaysaa 1000 sano intii u dhaxaysay nabi aadam عليه السلام iyo nabi nuux inna lama iman shirki waxa ugu horeeyay qoomkii nabi nuux عليه السلام nabi nuuxna waxa ahaa nabi ugu horeeyay ee loo soo diro qoom sameeya shirki iyo macsi far badan nabiyadiisa ka horeeyayna dadka ay xaq ku sii boorin jireen oo ku sii dashkeyn jireen oo cid iyaga kamid ah shirki lama iman nabi nuux عليه السلام qaabab kala duwan ayuu adeegsaday si uu qoomkiisa ugu yeero xaqa oo habeen iyo maalin xaq ayuu ugu yeeray qoomkiisa sidoo kale dacwadiisa sarana uu qaaday hoosna ugu dhigay sidoo kalena iyagoo wadar ahna ula hadlay iyagoo kala ula hadlay sidoo kale caruurtoodana ula hadlay dadkooda waaweyn ula hadlay sidoo kalena waxa uu la hadlay dumarkooda iyo raggoodiiba qoomkii nabi nuux عليه السلام xaqi way diideen oo wax ku adkaysteen gaalnimadoodii iyo salaamiyada caabudiyeen nabi nuux isagoo qoomkiisa ugu yeeray xaqa ay hadana u geysan jireen jirdil aad u badan iyo dhibaatooyin waaweyn dhibaatooyinkaas oo isugu jiray naf iyo maalba waxayna ku xadgudbeen sharaftiisii oo waxa ku tilmaameen inuu yahay nin waalan oo sixroolaa tilmaam kasto xunna oo qof lagu dhaho way ku dheen si aan dadku u raacin sidoo kale waxa aad uga soo horjeeday madaxweyntii bulshada intii bulshada u ahayd horseedka nabi nuux dadkii rumeeyay wuxuu badnaayeen dadka saboolka oo dan yarta ah dadkii gaalada haydna waxay ku meedeysan jireen nabiga iyo intii raacday waxaana oran jireen waxa raacday dadkii walwalna ee dan yarta ah waxay dhanaada doonsan waxna ku raacno iska reeb dadkan dan yarta ah kadib ayaan anaguna ku raacayna oo ku rumeynayna nabi nuux عليه السلام ayaa ku jawaabay qoomkaygiyow nimo weydiisanayo hanti mana eriyo ku yurumeeyay maxaa yeelay iyagu rabbigood ay la kulmi doonaan ee waxaan ni arkaana tiin qoom jaahiliin ah dadka dhibta ugu badan ku hayay oo uuna soo horay dadkoo dhan waxa ahayd xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray Wahiila waxaana ku oran jirtay ninkii uu waalin yahay ee raacina hana maqlina ee iskaga yaaca sidoo kale madaxweynta gaalada wuxuu sheegi jirtay kuwa soo raaca markaas nabi nuux kadib gaaladuna way jiri jireen nabi nuux عليه السلام muddo dheer ay dadku ugu yeeray xaqa waxaana raacday in yar oo kooban xaaskiisa iyo wiilkiisa ayaa kamid ah dadkii diiday xaqa halkaas wuxuu Alle nagu sheegayaa in wixii nabi nuux ka dambeeyay aan diintu hayn dhaxal sidii ay diintii ku horeysay nabi nuux waxaana ku soo qaadanay qaybihii hore ee barnaamijkeena sidoo kale Alle wuxuu siiyay cid doona xaqa cid doona oo ka leexiya qoomkiis waxa dhibsadeen soo noqodka iyo xaqa uu sheegayo iyo sida aan u daaleen markaste laakiin nabi nuux عليه السلام isagu waxa isdhagna u mudhigeen ee markasta uu imanayay waxaanu ku buuranayay waxaanu uga digayay cadaabta Alle laakiin iyagu markaa nabi nuux عليه السلام oo hadlaya ama soo socda
dhagaha ayay faraha gelin jireen sidoo kalena maradooda ayay madaxa saari jireen si aan u arkin una maqlin sida Allah subxaanahu wa ta'aala ku sheegay quraankiisa suuratu nuux wuxuu nabi nuux calayhi salaam leeyay ilaahayow qoomkayga waxaan u yeedhay habeen iyo maalin markastana waxaan ku weydiin jiray dambi dhaaf markaan la hadlana faraha ayay dhagaha gelin jireen madaxana waxay saaran jireen maradooda si aanay arkin inana maqlin waxaana ku odhan jiray ilaahay dambi dhaaf weydiista ilaahay waa dambi dhaaf badan yahay nabi nuux calayhi salaam wuxuu qoomkiisa u yeedhayay 1000 sano haddaba 1000 sano oo dhammaystiran kadib inta u imaadaan qoomkiisu ay ku odhan jireen nuuxow waana la murantee barnaamijka cadaabkaaga kadib nabi nuux oo wali rajo la dhigin ayaa ku jawaabay alla waniikini kor hadduu rabo cadaabkiisa mana caajis gelin kartaan kadib gaaladii markay arteen wali xaqii wado ay uga hanjabeen inay dili doonaan isaga iyo wixii raacayba walina ku dili doonaan dhagax haddaanu joojin waxaan wado iyo dacwadan kadib nabi nuux calayhi salaam markii arkeen rumayn waayeen qoomkiisii ayuu habaaray sida ku xusan suurada nuux aayadda 5 ilaa aayadda 6 waxaanu nabi nuux alla ka codsaday inuu halaago qoomkan dambiga sameeyay dulmigana haya walina soo gacmaha kor u taagaya ayuu dhahay allah dhulkan korkiisa ha kaga tagin ruux qura oo xun waayo waxay lumin doonaan adoomadaada mana dhalayaan waxaan ahayn gaal xun oo faasiq ah kadib nabi nuux calayhi salaam waxa loo waxyooday inuu sameeyo doon waxaanu guda galay inuu soo ururiyo looxyo caleemo si uga dhiso doon kadib alle ayaa baray qaabka uu sameyn doono doonta waxaana amray inuu qoreystul saaro kadibna ku garaac masaabiir kadib waxa soo maray qoomkiisii iyagoo yaaban kuna jeesjeesaya ayaa ku dhaheen maxaa ku dhacay maanta nuux manajar ayuu noqday awadiintii uu nugu yeedhi jiray waxaana dhaheen doon iyo saxaro wala kala duwan yihiin waxa ka wadaan waa saxara meeshane ama badba taala waxaana dhaheen waa waalidii lagu sheegi jiray ayaa ku soo baxday maanta laakiin waxaana eegan iyagu aanay fahansaneyn inuu ku soo socdo halaagaas ah kaygu gacmahooda ku dalbadeen kadib nabi nuux calayhi salaam waxa lagu dhahay markaad aragto calaamadaha iyo astaamahaas waxaad fuuli doontaa doonta waxaana soo ururin doontaa xoolaha adoo ka soo qaaday mid kaste labkiisa iyo dhadigiisa saana xayawaanadaasi ugu dabargoyin halaagaas kadib nabi nuux calayhi salaam markuu arkay astaamihii calaamadihii loo sheegay ayuu qoomkiisii amray iyo intii raacday inay u yaacaan xagga doonta xaggaasna ay fuulaan xayawaanadii oo dhanna mid kasta labkiisii iyo dhadigiisii ayay saareen kadib alla subxaanahu wa ta'aala ayaa cirkii iyo dhulkii amray inay soo daayaan biyo kadib wax waa la biloobay cadaabkiisii cirku wuxuu amray inay soo daayaan biyo dhulkina waxa amray inay soo daayaan iyagana biyo kadib cirkii dhulkii waxa ka biloomay muujido aan kala go' lahayn doontii nabi nuuxna waxay haabisay oo kor socotay biyihii kadib nabi nuux calayhi salaam wuxuu arkay wiilkiisii oo saaran buur waxaanu ku dhahay wiilkaygiiyow kaalay oo soo fuul doonta laakiin wiilkiis wuxuu ku dhahay aab buurta ayaan fuulaya biyina ma soo gaarayaan ee iska tag ilaa waa naf socota la joojin karaa halkaas ayay ku burbureen qoomkii nabi nuux iyo wiilkiisii iyo sidoo kale xaaskiisii halkaasay ku saaf jarmatay taariikhdii nabi nuux sidoo kale waxay sheegaan in doontii nabi nuux istaagtay buurtaasoo ku taala ciraaq iyo turkiga qaar kalena waxay sheegaan wadamo kala badan laakiin xaqiiqada alla ayaa og subxaanahu wa ta'aala kadib wuxuu alla samadii iyo dhulkii amray inay samadu joojiso biyaha dhulkana uu dib u liqo biyihii uu soo saaray kadib amarkii alla ay qaateen waana joojiyeen biyihii kadib intii yar ee raacday qoomkii nabi nuux waxay caabudeen ilaahay kadib waxa dhintay nabi nuux calayhi salaam halkaas ayay ku soo dhammaatay qisadii iyo taariikhdii nabi nuux calayhi salaam وحي من القصص التي دلت على الله الجليل قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل تالله ليس لها مثيل وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل